السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي ولا ليك الصومالية قيمة كرامة له ملول بأجوك الله سبحانه وتعالى إذنكم أمان سدواء أن وولالكينا عبد الله إبراهيم محمد إجوغا مقالة بلد وين قبل كهيران دالك الصومالية waxaan jeclahay markaasi saabalanka uu ahaa inaan wada bilaawno maadada la yiraahdo chemistry-ga intii Allah subhanahu wa ta'ala uu iga garadsiiyay inaan idin soo gudbiyo inta aad taqaaniin inaad ku kabataan ayaan rajaynayaa Ilaahay hadoo idma dad iga cilmi badanaatihiin nin walba cilmi oo haya intii cilmi nin walba uu hayo isku darsano oo markaasi aan iskaashan oo kaliya ma aha inaan idinka cilmi badanahay qof walba cilmi oo haya cilmiga aan isku kaashano waa waxa la yiraahdaa markaasi al-cilmu bayna talaamiid waa ardayda dhaxdooda ayuu cilmigu ku jiraa hadii aan isku weedaarsano qof walba cilmiga uu haya hadii markaasi oo dadka uu gaarsiiyaa markaasi waa la kala faa'iideystay maadadani chemistry-ga walaalahaygiyo ma aha maado markaasi yar ma aha maado markaasi dhowr sanadood oo kooban lagu soo gabagabeyn kara maadadani waa maado markaasi aad u ballaaran faa'iidooyin badan xambaarsan inta badan nolosha hadda horumartay waxa kaliya lagu shaqeystaa waa maadadani qof ka bartay waa qof markaasi dunida hadda qaali ku ah waay markaasi maadooyinka barashadeeda waxay u baahan tahay markaasi in waqti badan iyo juhdi badan iyo daba socod badan in la geliyo ay u baahan tahay maadadani dugsiga sare oo kaliya ayaa 4 sano lagu bartaa maadadani waxay u badan tahay in markaasi qofka uu sameeyo baaris badan oo cilmi baaris uu sameeyo dhan walba ka sameeyo markaasi qofka waxa uu sameeynaya markaasi cilmi baaris badan waqtigiisana inta badan waxa uu gelinayaa baaris iyo markaasi jawaab u helis waxa uu baarayba maadadan chemistry-ga inta badan dadka waa ay wada yaqaaneen eray ahaan balse waxa naga maqan ereygaasi iyo asal ahaan halka uu ka yimid ayaa naga maqan maadadani Allah subhanahu wa ta'ala raali haduu ka noqdaa qaybtan hadaan idin soo diyaariyay maanta idin soo diyaaro waxay u tahay hordhac ay u tahay cashiro taxana ayaana bixin doonaa Allah subhanahu wa ta'ala hadii uu raali ka noqdo cashiradani aan ka soo minguuriyay buugaagta markaasi muqarrarada dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre Google-ka iyo markaasi buugaag kale oo aad u tiro badan ka soo minguuriyay ayaan soo geey doonaa Allah subhanahu wa ta'ala hadii uu raali ka noqdo waxaan rabaa markaasi hordhacayna maanta inaan ka dhigo 4 qayb inaan markaasi aan ku soo koobo hordhacayna ayaan jeclaa Allah subhanahu wa ta'ala hadii uu raali ka noqdo qaybta koowaad oo ah ereyga chemistry asal ahaan halku ka soo jeedaa si la mid ah intuu ka yimid qaybta labaad oo ah markaasi muxuu maadadani chemistry-ga ah ay muhiim u tahay barshadeedu ta saddexaad waxay tahay chemistry-ga sidoo uu la xiriira nolosha tan afaraad oo ah markaasi chemistry-ga ma leeyahay markaasi xirfado shaqo ma leeyahay afartaas qayb ayaan ku soo aruurin doonaa Allah subhanahu wa ta'ala hadii uu raali ka noqdo qaybta koowaad aan markaasi u galno muxuu yahay chemistry-ga halkee ayuu ka yimid erey chemistry ayaan markaasi u guda galeynaa ereyga chemistry waxa uu ka dhashay waxyaabihii ay dadku qaban jireen ilaa intii ay dadku jireenba kumanaan sanadood ka hor ayay dadku yaqaaniin sida loo diyaariyo qalka qamrada iyo saabuunta sameyntaas ay yaqaaniin sheeyadaasi waxa ay u bedeleen hab cilmiyeysan ay u bedeleen asbaabaha loo bartay cilmigana waxa ka mid ah waa in uu qofku ay ku abuuranto in uu u fikiro hab cilmiyeysan dadkaasi cilmiga ay barteen wuxuu ku abuuray inay hab cilmiyeysan ay u fikiraan ay markaasi qalka iyo qamrada iyo saabuunta ay soo saarayaan hab cilmiyeysan ay u rogaan ay markaasi ku fikireen ereyga chemistry yaqaan waa magac la siiyo dadka isku dhiiba ee raadiya inay ogaadaan waxyaabaha ka dambeeya waxyaabaha la yaabka leh maadadan chemistry-ga la yiraahdana waxa
uu jawaab u raadshaa laba su-aalood oo kale ah muxuu maatarku ka samaysan yahay iyo sidee ayay bedelaada nooc maatarka ah loo bedelayo nooc kale ugu xidhan tahay samayskeeda. labadaas su-aalood ayuu jawaab u raadiyaa maadadani kemistriga. sida loo badinayo markaasi kemistri aqoon aruursani ahayd oo iska yareed aqoonteeda waxa ay bilaabatay taariikhdii dhalashadii Nabi Ciise kadib bilowgeedii, waxaana ay ka bilaabatay magaalada la yiraahdo Alexandria ee dalka Masar ay ka bilaabatay. magaalada la yiraahdo Alexandria waxay ahayd magaalo xudun ah markaasi ganacsi xoog leh iyo dhaqan aad u sareeya. sidaa markaasi awgeed dad fara badan ayaa ugu imaan jiray dunida inteeda kale, waxayna ahayd ishii aqoontii hore ee masaarida ee jiri jirtay ilaa iyo waqti aan la xasuusan karin. halkaas Alexandria la yiraahdana waxay ahayd waa meeshii markaasi fikradihii Greek ee hore aqoonsiga hagaagsan ay ka heleen way. markii carabtu qabsatay Masar iyo dalal kale oo bariga ahba qarnigii 7aad, aqoontii faraha badneed Alexandria taalay inteedii badneed way ay xumaadeen. markaasi carabtii qabsatayna waa ay ka faa'iideysatay aqoonta taylay markaasi magaalada Alexandria. walxa cusub oo waxtar leh ayayna daaha ka rogeen markaasi ama ay daaha ka qaadeen. walxaha cusub ay daaha ay ka qaadeenna waxaa ka mid ahaa ereygani marka aan u socono ee kiimiya ahaa oo ay saynisyahanadii Alexandria ku noolaa isticmaali jireen. waxay markaasi carabtu ku kordhiyeen al, sidaa waxa ay ku noqotay markaasi alkiimiya ama alkemi ayay noqotay. saynisyahanadii carabta ahaa waxa ay markaasi ka tageen buugaag fara badan oo ka hadlaya tijaabooyin la xiriira kemistriga ayay ka tageen. sidoo kale markii ay carabtu qabsadeen dalka Isbaanishka ama Spain, waxa ay gaadhsiiyeen Yurubta galbeed aqoon badan oo kiimika ah. carabtu ayay la socotay fikradda ah in biraha markaasi loo rogi karo dahab loo rogi karo. carabtu ayay la socotay. casrigii markaasi loo yiqiinay waxaa la gaaray facihii dhexe, waxa uuna Yurub kaga lumay sidii ay u hirgelin lahaayeen fikradda ah in biraha dahab loo rogi karo. waxaa kaga lumay waqti aad u badan ayaa kaga lumay. taariikhda kemistriga waxaa casriga loo yaqiini jiray markaasi facihii alkimiga. fikirka sayniseed oo dhan waxaa waqtigaa gacanta ku hayay facihii dhexe, waxaa gacanta ku hayay kiniisadda Katoliga ayaa gacanta ku haysay. fikradahaas ay gacanta ku haysay markaasi kiniisadda Katoliga. fikradda ugu xooga badani waxay ahayd tii Aristotle oo ay kiniisaddu wax xoogaa yar ay ka bedeshay, waxna ay ku soo kordhisay. marka fikradda Aristotle oo aan baran doono Alle subxaanahu wa tacaala hadduu raali ka noqdaa, fikrad allaale fikradii taa ka gedisan wixii ama lid ku ah fikradahaas kiniisadda yaalla, qofkii la yimaada ama soo hinisaa waxaa markaas aayihiisu ay ahaan jireen in qoorta laga jaro ama la dilo. sidaas ay ahaan jireen. markaas facahaasi la yiraahdo facihii dhexe wax horumar ah lagamaanan gaarin gebi ahaanba maadada kemistriga. si lamid ah haddii lisba bardhiga marka alkimigii carabta iyo ka Yurub, waxaa markaasi mid horumarsan ahaa xilligaasi midka carabta, oo kan Yurub waxa uu ahaa mid markaas dib u socod ah oo lidna ku ah horumarka sayniseed. waa markaasi xilligii loo yaqiinay fufka xilligii loo yaqiinay waa xilliga uusan
horumar uusan ka sameynin Yurub maadada la yiraahdo chemistry-ga. facihii markaasi fufka ayuu chemistry hagaagsan ka bilaabmay Yurub, inkastoo aanay markaasi dhibaatooyin badan kaga imaanin nolosha hanti-guudka ay ahayd markaa jirtay tijaabooyin badan oo lagu baadhay sidii loo diyaarin lahaa daawooyin ayuu chemistry-ga cusub uga dhashtay wadamada Yurub. daawooyin cusub markaasi ay ictiraaqayeen ay diyaarinayeen ayay cilmi kaga kororsadeen. chemistry-gaas ay cilmiga kaga kororsadeenna waxaa loo yaqiinay markaasi hydro chemistry ayaa loo yaqiinay ama chemistry-ga daawooyinka. waxaana bilaabay nin la yiraahdo Paracelsus oo Swiss ahaa oo markaasi dhakhtarna ahaa ayaa bilaabay. waxaana uu haystay ninkaasi in ay ujeedada ugu weyn ee chemistry-ga ay tahayba diyaarinta daawooyinka. fikradaasina waxa ay yeelatay aqoonsi ballaaran ayay dib ka yeelatay. ugu dambeyntii chemistry hagaagsan oo markaasi kii saxda ahaa waxa uu soo bilaabmay ayaan dhihi karnaa qarnigii 5aad ayuu soo bilaabmay, oo markaasi waxaa soo ictiraaqay nin la yiraahdo Robert Bowl ninkii liilaad ayaa soo ictiraaqay. ninkaasoo noolaa markaasi 1626 ilaa 1691 noolaa. maantana chemistry-gu waxa uu weeye barashada walxaha kala nooca ah aynu deegaankeena ka helno. wixii ka dambeeyay markaasi ama qarnigii 18aad ayaa ereyga markaasi alchemy waxay English ahaan waxa la yiraahdaa hala casriyeeyo oo fashion laga dhigo magacaasi. isku dayo badan la sameeyay xilliyada iyo xilliyo kale. ugu dambeys waxaa la helay ereyga ah markaasi chemistry. sidaas ayuu ku yimid iyo heerarkaas ayuu markaasi soo maray in la helo maadadani iyo markaasi in la helo magacaasi. waxaan u gudbayaa qodobka labaad oo ah muxuu muhiim u yahay barashada markaasi chemistry-ga. chemistry-ga waxa uu leeyahay markaasi habab kala duwan oo markaasi waxtar ah ayuu leeyahay. ta koowaad oo ah markaasi in la sameeyo ama la soo saaro waxyaabo cusub waxa ay ku xiran tahay barashada chemistry-ga ayay ku xiran tahay. inaad ogaato waxyaabaha nagu hareereysan waxa ay ku xiran tahay barashada ama waxay muhiim u tahay barashada chemistry-ga. si la mid ah karinta ama cooking afka qalaad waxa lagu yiraahdaa, wuxuu chemistry-ga sharaxaad u ka siinayaa sida cunnada isu bedesho marka aad kariso iyo intaadan karinin ka hor. muhiimad waay oo ah markaasi raashinka markaad karsanin intaad markaad karsatay kadib isbedel ayuu leeyahay. bariiska kale waan aragnaa, baastada waan aragnaa, dhammaan raashinka aanu naqaano isbedel ayaa ku dhaca markii la kariyo kadib. muhiimad ayay u leedahay markaasi chemistry muhiimad ayay u leedahay. iyo si markaasi oo u isticmaali lahaa cunnadaasi la kariyo jirkaagana muhiimad ayay u leedahay markaasi maadada chemistry-ga. sidoo la mid ah maadadan chemistry-ga barashadeeda muhiimadeedu waxa waaye markaasi medicine daawada. qofka hadduu rabo barashada daawada inuu bartaa waxay kaga xirantahay inuu bartaa asaasiyaadka chemistry-ga. waa inuu qofka bartaa sida markaasi fitamiinada iyo markaasi daraagiska kale daawooyinka kale ay u caabiyaan ama ku waxyeeleeyaan. haddaad rabto inaad barato chemistry-ga ayaa laga helaa.
qodobka labaad sidaas ayaynu ugu bixinaa. qodobka saddexaad oo ah markaasi sidee chemistryga ula xiriiraa nolosha. chemistryga maadadan la yiraahdo wuxuu la xiriiraa nolosha ayuu la xiriiraa, siyaabooyin kala duwan ayuu ula xiriiraa. noloshan aynu noolnahay jirkeena waxa uu ka samaysan yahay curiyaal, khaasatan curiyaasha wuxuu ka samaysan yahay kaarboonka, hydrojiinta, oksijiinta, nitrojiinta, fosforka iyo sulfarka. maadooyinkaas ayuu khaasatan uu ka samaysan yahay jirkeena. sababta noloshaani ay usii jirta, noloshaada ay usii jirta, ay usii socotaan waxaa lagu sheegaa inay tahay isbedelada ka dhaca unuga bili-aadamka dhexdiisa, sida markaasi cellular respirationka iyo protein synthesiska ayaa lagu sheegaa. ahmiyadda markaasi ugu dambeysa oo leeyahay ama hordhaceena aan ku soo qaadanaynaa waxuu yahay chemistrygani ma leeyahay xirfado shaqo. qofkaani waxa baranayo wuxuu jecel yahay waxa uu bartay biri inuu ka helaa markaasi nolol wanaagsan. noloshaas ayaase waxay keenaysaa in uu horumar qofka uu ka sameeyaa markaasi waxa uu soo bartay. chemistrygani waxa ay leedahay markaasi maadooyin aad u ballaaran ayay leedahay oo xirfad qofka uu noqon karo oo biri ka maalin uu ku shaqaysan karaa. xirfadaasi lambar 1 waxaa ka ah qofka inuu noqon karo markaasi chemical engineer, inuu noqon karo engineer kiimika inuu noqon karo, oo qofka waxa uu ka qayb qaadanayaa in la naqshadeeyo ama la soo saaro walxa cusub, misna laga soo saaro sheyada ceerinka ah oo aan la isticmaalin weli, isigoo isticmaalaya markaasi aqoontiisa kiimikeed iyo markaasi aqoonta oo u leeyahay markaasi falgalada ay sameynayaan markaasi curiyaasha. tusaale haddii aan u soo qaadano in laga sameeyo balastiga, in laga sameeyo saliidda, waxay u baahan tahay cilmigaas uu qaban karo qof bartay maadada chemistryga. qofkaasi injineerka ah oo maadadani chemistryga bartay inta badana waxa uu ka noqonayaa markaasi shirkad, wuxuu ka noqonayaa caawiyaha wax soo saarka ee shirkadaha ayuu noqon karaa. qodobka labaad oo ah xirfadda ay leedahay markaas maadadani chemistryga waa chemistry teacher. saan wada ogsoonahay qofkan inuu noqdo macallin bixiya maadada chemistryga, oo qofkani xirfadani uu soo bartaa isna waxa uu sii gudbinayaa markaasi bulshadiisa, dadkiisa, deegaankiisa ayuu u gudbinaya, taasoo uu sameynayo mise uu ka helayo isagana wax uu ku noolaan lahaa, nolol aan wuxuu ka dhigan lahaa ayuu isagana ka helaya, isagana waxa uu bixinayaa cilmi. ta saddexaad oo ah markaasi forensic scientist, qofkan waxa uu noqonayaa turxaan bixiye oo ah waxyaabaha laga soo helo meelaha ay faldambiyeedku ka dhaceen, isaga oo baaraya markaasi dhiiga isagoo baaraya, ama tin isagoo baaraya, ama rinjig isagoo baaraya, ama qaab allaala qaabka wax ku baari lahaa isagoo ku baaraya ayaa la yiraahdaa maadadaas la yiraahdo forensic scientist ayaa la yiraahdaa. maadadani waa maadada lagu ogaado faldambiyeedyada ka dhaca markaasi daafaha adduunyada ee la garan waayay cidda gashay ayaa lagu soo saaraa. waana maadooyinka inta badan ardayda barataa ay yiraahdaan xirfadaha la bartay chemistry uu leeyahay maadada ugu arag waa tani ay yiraahdaan. sheeko markaasi waxaa jirtay oo noo sheegay macalinkeena kheyr allah siiye la yiraahdo jaamac maxamed mahad jaamac suule oo noo sheegay ayaa jirtay sheeko ahayd in markaasi intaas ayaan jeclaan lahaa Allah subxaanahu wa tacaala hadduu raali ka noqdo inaan kusoo gabagabayno maadadayni chemistryga hordhaceedii
cashirooyinka dambe iyo markaasi caafimaad iyo markaasi waxaan jeclaan lahaa alla subxaana watacaala inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa markaasi hordhaceynay maanta cashirkeena kemistriga. maadadani waxaan alla subxaana watacaala ka baryeynaa inuu nooga dhiga mid markaas si sahlan aan ku barano, waqti gaabanna aan ku barano. wax allala waxaan qalday waxay ka ahaadeen nafteeda iyo shaydaan ayay ka ahaadeen. inta aan saxayn alla subxaana watacaala ayaa garadsiiyey. waxaan isweydaarsanayna oo keliya qof walba cilmigiisa. haddii aan qaldamayno ay qaban kartaa oo shaashada lambar ku qoran ayagala soo xiriiri kartaa. haddii aa markaasi jeclaan laheyd in markaasi si gooni kale ay